السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحابتا ميل walba joogto in salaami waa saaxiibkeeni mini maanta waxaan idin wada sheeko cajiib ah amba qiso cajiib ah qisadaas oo ka dhacday deegaanka duleedka magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud bartamaha dalkeena ee Soomaaliya. qisadaas waxa weeye in hooyo Soomaaliyeed oo ari daajinaysa ayaa waxa ku dhacay ayadoo marayso meelahaas jidda oo lagu daajiyo ayaa sagaari la kulantay iyadoo ma aqaan marka luqada marka ka seeso wiil baa soo qaaday wixii dhaaday wuxuu ku hadlayaa luqada Carabiga. subhanallah waa runtii mucjiso oo dadkan lagu tusaanayo oo amal tus laga dhigayo marka uu qaajisnaayo marka sagaarka yar hooyadiisna waa la dilay marka baahina iska heesay marka wuxuu ku hadlayay ummi ari ummina waa hooyo saawtiin luqada Carabiga waxa lagu yiraahdaa hooyo luqadaas marka saas markii uu ku hadlayay waa la soo qaaday dibadeedna guriga la keenay caano ayaa la siiyaa oo masaasad ilmaha yar ayaa lagu siiyaa afka ilaa ku mas'uuliyad markuu qaajoodo ummi uu leeyahay markuu bixi tago oo maamadaas uu waayo ummi uu leeyahay habeenkii markii la gaaran dee waa cabsanaya oo wuxuu ka cabsanaya waa qof ku soo wuxuu ku soo koriyay wuxuu inaga la qaaday iyadoo la dilayo hooyadiis oo cabsanaya meel mugdi u galaya meelaas mugdiga markuu galo wuxuu dhahaa markuu qaajoodo ummi uu leeyahay markaas waxa la siinayaa bal video ayaan gudagali doonaa video soo daawada إلهي سبحانه وتعالى يا مختصنا ودقي ورنتي وآخر سمان وحياها آخر سمان كلا أركون أي كمية أرنانتي وحياها بدن وجيران بسوين بدن وإسكجيران أو العضل كانوا يسمعيا مركا بل صوت داولا فيديو أنا كده أحبه إن سبسكرايب نوصارا يوتيوب كأنك دوري سوا يمري ميديا شيرت إلى كنا نوصارا ومسنتين sagaarku wuxuu xilligan ka daba ordayaa hooyo Fahima Cali Xaashi oo ah hooyada qoyskan maamusho sidoo kale waa qofka gacanta ku hayo sagaarkan mucjisada ah ee la arkay isagoo ku hadlaya luqada Carabiga. qoyskana gacanta ku haya sagaarkan ayaa degan duleedka degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. xilligu waa casar liiq oo qorraxdu way sii dhacaysaa waxaana la kulanay dhowr qof oo ka tirsan qoyska xanaaneeya sagaarkan mucjisada ah. waxay nooga sheekeeyeen waxyaabaha la yaabka leh oo ay ku arkeen sagaarkan ee ka hadashiyay subxaanaka ya cadiim. marka uu baahi dareemo wuxuu ku dhawaaqayaa ummi oo ah eray Carabi ah macnaheeduna waa hooyo. maamada marka ay aadayso magaalada ama xaafadaha dariska la uu raaca kama cabsado dadka uu la kulmo oo waxa moodaa sagaara in muddo rabaayad ahaa. waxaa intaasi dheer inuu quuto caanaha xoolaha ee liska ah iyadoo lagu siinayo masaasada ilmaha dhasha lagu nuujiyo. sidoo kale waxa uu qaadanayaa amarada la siiyo sida kaalay soco oo ay ku tababartay maamo Fahima sida ay iyadu inoo xaqiijisay. sagaarkan waa sagaarkii luqada Carabiga ku hadlayay markay baahato ayna dhawaaqdaa markay dhergsan tahay way iska seexanee marka baahi waa ka ilaalshay aad uma hadasho hadda uma dhawaaqdo baahi waa ka ilaalshay mar walba masaasadaasaan caano ku siiyaa hadda waa dhergsanta waa siiyay laakiin markay baahantahay way dhawaaqdaa anaana xanaaneeyo anaa kafaalo qaaday haddii aanan dhiman amaan la iga xadin nolosheeda anaa kafaalo qaaday hadii ilaa yira wixii islaano ila garab gelayana diyaaran u ah.